wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay dib u furtay cisbitaalka guud ee magaalada Oodweyne muddo haatan ku dhow 20 sano oo cisbitaalkaasi aanay wax shaqo ay ka socon. Maamulka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo guddiga caafimaadka ayaa maanta daawooyin iyo agab kale oo caafimaadba gaarsiiyay cisbitaalkaasi. munaasabad ballaaran oo lagu talagalay furitaanka cisbitaalkaasi oo lagu qabtay xarunta gobolka Daadmareer ee Oodweyne ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Oodweyne, xildhibaano, maamulka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo dadweynaha gobolka Daadmareer. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Daadmareer Maxamed Gahayr Xirsi waxaanu sheegay inay ku hambalyeynayaan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland sida ay isugu hawshay inay dib u furto cisbitaalkii Oodweyne oo xidhnaa muddo haatan gaadhaysa 20 sano oo cisbitaalkaasi aanay wax shaqo ay ka socon. waxaanu gudoomiyuhu tilmaamay in lagaga maarmi doono baahiyihii caafimaad ee loo aadi jiray gobolada kale ee Soomaaliland. sidwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin Xaaji Saleeman oo isna xafladaasi ka hadlay ayaa sheegay inay maanta cisbitaalkani ay daawooyin soo gaarsiiyeen wasaaradahaadna intii ay joogeen ay dadaal xoogan u galeen in dib loo furo cisbitaalka Oodweyne. waxaanu isuduwuhu ballan qaaday inay tababaro u fidin doonaan dhakhaatiirta ka howlgalaysa isagoo ugu baaqay dadweynaha Oodweynena inay ilaashadaan cisbitaalkoodani iyo horumarintiisa. عافاك كسرنا كارها وحول سلامة كلا تلعبين هرو جرجر هرو دينا حلوك باهي يدكم هنا ساو فانتان هنا جرتان إسبالك يدكم باودي كلا هنا العدة يسكوها لينين دولتنا يسكوها لينين الدولة طبعا يسكوها لينا والدولة ديني والنظام كيني وي لكن عندنا عود بغالي إنه حقبتكم هي مسكحة وين تبغوا هنا هلكن كبيرة بنتا ضدكم هنا جرتان أنا يجيبوا ليهين هذا كان يجوا إسبتالك ويجوا وش غيره. waxaa kaloo iyaguna xafladani ka hadlay isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Dr. Ciise Nuur Liibaan, Baashe Xaaji Yuusuf iyo Jamaal Xiwaalo oo ka mid ah guddiga caafimaadka. dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen sida ay xilligani muhiimka u tahay in loo furo cisbitaalka Oodweyne. geesta kale bulshaweynta ku dhaqan gobolka Daadmareer Oodweyne ayaa iyagu maanta si ballaaran u soo dhaweeyay hawshani weyn ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ka fulisay gobolka Oodweyne. ugu dambeyntiina furitaanka cisbitaalka Oodweyne ayaa wax weyn ka tari doonta daboolidda baahiyihii caafimaad ee ka jirtay gobolkaasi. dhinaca kalena dufcaddii koowaad ee ka qalin jabisay dugsiga New Burco ayaa maanta xaflad ballaaran loogu sameeyay qalin jabintooda hoolka jaamacadda Burco, taasoo ay ka soo qayb galeen maamulka jaamacadda Burco, maamulka gobolka Togdheer, macallimiinta iyo maamulka dugsigaasi, arday, abwaano, ganacsato iyo waalidiin. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan waxaanu sheegay inay maamul ahaan u hambalyeynayaan ardaydani ka qalin jabisay dugsiga New Burco. waxaanu gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer tilmaamay inay xukuumad ahaan dhiirigelinayaan sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa ardayda ka baxda dugsiyada sare ee dhammaysata waxbarashada. maamulaha dugsigani New Burco Farxaan Maxamed Biixi oo isna xafladaasi ka hadlay ayaa sheegay in dugsigani oo jiray muddo kooban uu haatan ku tallaabsaday horumar ballaaran. waxaanu sheegay in ardayda maanta qalin jabinaysay oo tiradoodu kor u dhaafisay 180 arday ay ka qalin jabiyeen luqadda Ingiriisiga iyo xirfadaha kombiyuutarka iyo saxaafadda. waxaanu maamuluhu kula dardaarmay inay waalidiintu ubadkooda dabagalaan ayna la socdaan heerarka tacliintu hadba meesha ay marayso. Abubakar Carabileey oo ah macallinka saxaafadda ee dugsigani New Burco ayaa isaguna ka sheekeeyay habka iyo nidaamka ay u baxdo maadadani saxaafaddu, isagoo halkaasi ku soo bandhigay barnaamijyo maqal iyo muuqaal oo ka turjumaya aqoontii ay ardaydu ka baratay dugsigani. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Guuleed Daahir Samatar, علي مهدي إسماعيل وكترسن شركة إسكارسين تلسوم، أبوان هراول أول قدوميها جامعة برعو دكتور عبد الرحمن جامع الدعالة، والدين يمرت شرف كلاو بدن ودمان تطبع الكاسيكا هذا أياكو دير هذا مهمة دايلة داي وحبرشدو. وقدامبينتي قدوميه ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan ayaa halkaasi shahaadooyinkooda ku gudoonsiyay ardaydii qalin jabinaysay kuwaasi oo ka qalin jabiyay maadada Ingiriisiga iyo xirfadaha kombiyuutarka iyo saxaafadda. ugu dambeyntii dugsigani New Burco oo asaaskiisu ahaa sanadkan aynu ku guda jirnay 2011 ayaa ku tallaabsaday horumar ballaaran iyadoo dufcaddii u horeysay ee ka qalin jabisay dugsiganina ay tiradoodu dhan tahay 190 arday. Maxamed Caawad Maxamed, wararka shabakadda caalamiga ee Oodweyne News, gobolka Togdheer.